Liigii Barcelona xiddigii caan ku ahaa baasas qurxoon iyo gool dhalinta aan kala joogsiga lahayn Lionel Messi ayaa gaaray kooxdiisa cusub. Lionel Messi ayaa galabnimada Talaadada gaaray kooxdiisa cusub ee PSG kadib markii uu heshiis 2 sano ah la gaaray inuu ka mid noqdo. Lionel Messi ayaa shaashadaha caalamka qabteen isagoo u gacan-haatinayo taageerayaasha PSG. Naadiga faca weyn ee reer France ee PSG ayaa bartooda Twitter-ka soo dhigay muuqaal ay ku soo dhaweynayaan imaatinkiisa, waxaana wehelinaya ereyada dheemanka cusub ee Brazil. Lionel Messi ayaa shir jaraa'id loo qorsheeyay subaxnimada Arbacada in halkaas uu kala hadlo taageerayaasha naadiga PSG. Laacibkan ayaa ah gool dhaliyaha ugu wanaagsan Argentine iyo Barcelona ayaa ooyay Axaddii markii uu macsalaamay kooxdiisii hore ee Barcelona. Bixitaankiisu waxa uu yimid kadib markii kooxdii ay sheegtay in aysan awoodi karin in ay xushmayso qandaraaskii ay la gashay Messi, iyadoo eedayn dul saartay xiriirka ciyaaraha wanaagsan ee La Liga. Lionel Messi ayaa la filayaa inuu maro tijaabo caafimaad ka hor inta uusan u saxiixin si rasmi ah inuu ka mid noqdo kooxda ay taageerto dowladda Qatar.